qaar ka mid ah dadka muslimiinta Soomaaliyeed ayaa deeq lacageed soo gaartay Khadija Cali Sheekh oo ah dhibane la ildaran cudurka kansarka waxaana taasi ay ka dambeysay dhibaatada haweeneydaasi uu marka uu baafiyay TV-ga qaranka Sahra Sheekh Cali oo ah Khadija walaasheed ayaa ka warbixisay caawimaadka soo gaadhay lacagahan oo soo gaartay oo walaalaheen deeqda soo dhiibeen aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa وين كم هتسيين دوران أو دواتيسن أي بسول تاجرين أيضا أجر الله كسيو أنا وحي مسوا كلا جارتي عادل سعيد كنتم دولار أو عدن إيه صادري عبد الوحيد كنتم دولار أيو إيه صادري آمنة عثمان أفر بقول ريال أو سعودية إذا سعودي بجوقته إيه سو أو شيء محمد عثمان بقول ريال وحون كصادري ريال أوس حاجي $50 ayuu soo diray walaashiis ayuu ku soo wakiishay Luul Xasan $100 ayay soo dhiibtay la jacal $50 ayay soo dhiibtay Shamso Sheekh $120 ayay soo dhiibtay Maryan Xaaji $100 ayay soo dhiibtay iyadoo Mareykanka joogta iyadii Shamso Amal Abdullaahi waxay soo dhiibtay $266 Mareykanka ayay soo dhiibtay حبيبة محمود $220 ayay soo dhiibtay Xaliimo Guuleed $260 ayay soo dhiibtay Ayman Shop $100 ayuu soo dhiibay Finland ayuu asna ka soo diray lacagtaas aan ku wareejinayno gabadhan oo xanuunsan oo walaasheena ah intii soo dhiibtay ajar iyo xasanaad Allah ka siiyo waxaan mahad u celinayaa TV qaranka oo naga soo gaartay $200 oo u dhiganta $100 Sacuudiga ah oo sharafii ay soo dhiibeen oo soo wakiishteen dhalinyarada kaamiraamaanyaasha oo TV qaranka u shaqeeyo aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin Axmed Carab telefishinka qaranka Soomaaliyeed Jidda Saudi Arabia